Facebook profile-kaagu waa goobta ama meesha aad kula wadaagto asxaabtaada kolba warbixinta aad rabto in aad dhigto iyo wixii maankaaga ka gooxaya. Facebook profile-ku waa meel shakhsi gaar ah uu leeyahay, isla markaana Facebook ama shirkadda Facebook ugu tala gashay inuu qofku afkaartiisa iyo wixii maankiisa ka gooxayo uu ku faafiyo. sida la wadaag yahay ama qof kasto Facebook isticmaalo oo ka warqabo tirada dadka Facebook profile-kaagu ku buuxsama ama tirada asxaabta xadigooda loogu tala galay inaanay dhaafin Facebook waa 5,000 qof. Facebook profile-kaagu ama asxaabta kugu taxan ee had iyo jeer isticmaasha Facebook isla markaana friends-ka ku ahi markay 5,000 qof ku gaadhaan awood uma laha inaad qof kale ku soo diri karto oo 5,000 hal kaga dhigi karto. waa inaad qof hore kugu jiray ka saartaa deetana aad ku dartaa qofka cusub ee u baahnay. shirkadda Facebook waxay samaysay wax loo yaqaan Facebook fan page. Facebook page-ku uu ka duwan yahay Facebook profile-ka. Facebook page-ku waa meel loogu tala galay oo shirkadda Facebook ugu tala gashay inaad ku isticmaasho shay aad rabtay inaad ku baahiso bulshada ku tusto waxyaabo fara badan oo kala duwan, ganacsi hadaad leedahay meheradaada ku xayeysiisan karto, isla markaana dadku kala soo xiriiri karaan adiga, laakiinse bis qaab ganacsi ahaaneed oo kale oo ka duwan profile-kii. waayo profile-ka oo kan ahi waxa had iyo jeer lagu gartaa ama lagu yaqaana in dadku followers ay ku siiyaan ama friends ay kula noqdaan. qofka aan doonayn friends kula noqdo ee raba inuu waxaad soo geliso haddana ogaado Facebook wuxuu sameeyaa wax loo yaqaan follow. qofka Facebook-gaaga page-ka like gareeya مثلا تصالحنا كلا أرتي كاب وكلا page كارتي كاب مركز like garayso waxaad had iyo jeer la kulmaysaa ama aad arkaysaa waxyaabaha ama duruusta aan soo dhigno ee website-ka artay kaab soo post gareeyo, isla markaana aad si taxanaa uga la socon kartaan waxyaabaha aan soo dhigno Facebook page-kayga. laakiin profile-ku uu ka duwan yahay taa. haddaba profile-kaagii wuxuu gaadhay 5,000. dadkeen waxay inta badan isticmaalaan yiraahdaan like gareeya page-kan cusub degalka hore iga buuxsamay. waxa ka fudud taa inta like cusub bilaabi lahayd ee asxaabtaadii 5,000 ahayd ka soo guuri lahayd halkan cusub igala socda inaad asxaabtii maca la soo guurto oo waxaad sameynaysaa maxay soo min guuridda Facebook profile-kaaga aad u soo min guurinayso Facebook page adigoo ku saleynaya profile-kaaga. haddaba si aad taasi u hesho linkiga hoosta yaalla koobiye. markaad linkiga hoosta yaalla koobiyeyso video-gana daawanayso hoostiisa yaalla koobiyeyso. markaad koobiyeyso halkan ku bist garee deetana goodhe ama intersi waxa kuu soo baxaya page-ka noocana. page-ka noocana wuxuu ku leeyahay how do I convert my account Facebook page, sideen ugu bedelaa profile account-kayga Facebook page. deetana si aad ugu bedeshid buu ku yiri isaga inoo tilmaamay waa runtii waa graphic user interface waxa loo yaqaan ayuu ku dhisan yahay Facebook amaba qaab kale hadaan dhigno luqadda website-da lagu sameeyo ku hadalno content management system waxa loo yaqaan oo ah in si fudud aad u isticmaali karto website-ka aad ku jirto. haddaba si aynu profile-keena u bedelno oo aynu ugu rugno page waxaan kala garanayaa bartan. markaan halkan click siiyo waxay soo baxaya daaqada halkan taagan oo ah meeshan ka bilaabi lahaa. deetana waxaan onayaa get started. get started markaan idhaahdo xoogaa yar baan sugayaa kabacdi waxa samaysmaya Facebook page ka abuurmaya Facebook profile-kayga. sawirku wadanaya waa sawirkaagii, profile-ku magacu wadanaya waa magacaagii. deetana waxaad oranaysaa continue. haddii aad not now tiraahdo waxyaabaha aad ka tegaysa diidaysa waxaa ka mid ah inaad ku soo darto dadka friends-kaaga ha Facebook page-kaaga automatically, inaad sawiradii waxyaabihii kugu jiray profile-kaaga u soo guuriso Facebook page-kaaga. hadda xasuusnaada profile-keeni uu jiraa ma baabaayo waxbana ma noqonayo. kabacdi waxaan onayaa continue. markaan aad meeshii waxaan maraynaa bartii aan u dan lahaynba oo ahayd inaynu asxaabteeni la soo wareegno. waayo profile Facebook page simple way waa la samayn karaa, balse wuxuu kaga duwan yahay cashirkeenani Facebook page-ka samayntiisa inaad samayso Facebook profile page, inaad la soo guurto asxaabtaadii friends-ka kuwa hay kugu jiray profile-kaaga oo aad u soo rarato
Facebook page cusub maadaama shantii kun ka gaadhay inuu ka buuxsamin kadib markaad halkaa joogto waxyaabaha halkan ka qaban karto wax kamid ah warbixin page-ka ku saabsan inaad samayso kuwaas oo kala ah nooca Facebook page-ka aad rabto inaad samayso category-giisa ma business ba local business ba ma public figure ba ma journalist ba whatever wixii aad u baahan tahay ma website ba halkan waa magacii ma magacaagii baad ku daysanaysaa mise magac cusub baad u samaysanaysaa haddaad magacaagii ku daysanayso just halkaa ku dhaaf haddaad ku cusub samayso edit deetana ku dhex qoro magac cusub halkaas inuu ku diina waayo waxaan dalaynayna barano qaabka profile-kaaga aad ugu soo guurin lahayd page isla markaana PN friends-kaaga aad like uga dhigi lahayd waxaan marka next iraahdo halkan waxa imanaya dhammaan asxaabtii iigu jirtay waa 4815 I don't know Facebook aad iyo jeer shantii kuna meesha noo yaalay nama wada siinayo laakiin halka ku buuxsamo waa halkan 4815 ka qof waxaan rabnaa inaan u soo rarno hadii niyada ku hayo waxaan rabnaa inaan u soo rarno page-keena cusub 4000 oo isla imaanta helno 4815 qof oo likes intana meel kale kama iman waxay ka timid oo kaliyaata waa dadkii asxaabta ku ahaa baad u bedelatay page-ki wuxuu kale markaa mid ku soo daraysaa haddaad tiraahdo skip waska dhaafto chance ka wadaamisay waxaan markaa selector ii wada door shakhsiba uma kala doorayay ii wada door waxa asxaabi igu jirtay oo page-kayga igu soo rid page-kayga dhamaantood igu soo rid waa kuwan 4815 qof ayuu soo select garay waxaan markaa next markaan si finally we reached waxaynu gaadhnay halkii aynu rabnay oo ahayd inaynu page-keeni samayno waana samaynay real page-ka waxaynu kas abuurnay kasoo jabinay profile-keena waxaynu kala soo tagnay oo aynu likes ka dhiganay automatically asxaabteeni markii koo talaabada soo qaadnay waxay page-keena inaynu profile wuxuu ku saabsanaa sameynay deetana asxaabta soo guurinay kadibna sawirada haddaan rabna inaynu soo guurino sawirada haddaad rabto soo guur hadii kale time buu qaadanaya waxba iska dhaaf oo sawirada waxba profile-kaagana uu ku yaalaan you don't need it waqti bay naga qaadanayaan waxaan markaa finish markaan idhaahdo waa inaan imika helaa Facebook page cusub oo magacayga iyo likeski oo kuwan